الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة هي قاية هلا نقل صعودتي في قرنك السوماليلان ومركز لي برنامج كان الإسلام كي ساينس كا داودي برنامج كان قضب كان يدكوها هنا يا وحوي هي معجزة dhanka cilmiga ah iyo waliba dhanka diinta ee ku duugan atomka oo ah shayga ugu yar ee uu ka sameeysan yahay dhammaan waxa loo yaqaan maatarka ama noolaha noqdo ama manoole shayga ugu yar ee uu ka sameeysan yahay makhluuqa oo dhami ayaa waxa loo yaqaan atom shaygaasi oo baryahan dambe cilmiyada waxyaabaha lagu ikhtiraacay noqday waxyaabaha ugu la yaabka badan ee dunidan casriga ah lagu ikhtiraacay barnaamijkan ayaan haddaba ku qaada dhigaynaa qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay atomku iyo awoodiisa uu ilaahay geliyay shaygani aadka u yar barnaamijkan iyo kuwa soo socdaba hadduu alla yiraahdo waxaanu ku qaada dhigi doonaa shaygaasi yar ee loo yaqaan atomka ee daawasho wacan barnaamijkan waxaynu ku qaada dhigi doonaa wax badanna kaga ogaan doonaa shayga ugu yar qaab dhismeedka noolaha iyo waliba manoolaha waa atomka atomka oo mararka qaarkood ah shay dadka ku noqda wax ka kan oo aan la fahmi karayn ayaa haddana ah meelaha ugu waaweyn ee laga dheehan karo abuurta Ilaahay korray oo ceeb ka nasahnaaye ee la yaab kale
Atoms are everywhere. Atomlar her yerde. Everything we refer to as matter wax waliba waxa uu ka samaysan yahay atom. wax kasta oo aynu maatarka u naqaanaa waxa uu ka kooban yahay atom. innaga lafteenna, guryaheenna, qolalkeenna dhammaantood waxay ka samaysan yihiin atom. sababta aynu atamyada inagu xeeran u aragno ayaa ah elektaroonada dusha sare atomka oo hirdiya photoniska. atamyaduna waa isa soo jiitaan amaba kala didaan. kursiga ama dhulka aad ku fadhido hadda ma taabanaysid, balse xaqiiqdii atamyada jidhkaaga ayaa ay kala didaan, kuwa dharkaaga iyo kuwa kursiga. dareenka taabashaduna waxa uu ka soo baxayaa halkaasi isaga oo saamigal quman ku ah xoogga aad ku cadaadinayso kursiga ama dhulka. ma dhacdo inaynu marnaba taabanno maatarka aynu gacanta ku qabanno. taasi haddii ay dhacdo waxaa halkan ka dhici lahaa chemical reaction amaba falgal kiimikaad, taasoo macnaheedu noqon kari lahayd in aanay nolol jirin. kumanaanka trilyan ee atom ee jidhkaagu ka samaysan yahay mid waliba waxa uu leeyahay elektaroonno ku socdo xawaare gaadhaya kumanaan kilomitir ilbiriqsigiiba. ma rumaysan kartid daawade, balse waxaa jira atamyo ku wareega xawaaro la yaab leh iyagoo aan luminaynin isu dheelitirankooda, tabayn amaba kala tegayn qayb kasta oo ka mid a jidhkaaga. sidaa daraaddeed sideed u malaynaysaa inuu ku yimid isu dheelitirankaasi la yaabka badani? wax waliba waxay ku bilaabmeen qarax weyn oo loo yaqaano Big Bang. urta ciidda buluuga khafiifka ah ee samada iyo wax kaloo kastaaba waxay mar qura ku urursanaayeen dhibic kaliya oo cufnaanteedu aanay qiyaas lahayn. saynis yahanadu waxay ku qiyaasaan waqtiga ay dhacday dhacdadani ku dhowaad 15 bilyan oo sano ka hor. waqtigaasina waa xilligii biloga u ahayd waqtiga atomka oo ah shayga ugu yar ee maatarku ka samaysan yahay iyo qurubyada kale oo la midka ahi ay samaysmeen. büyük bir patlamanın ardından oluşarak bir araya gelme sürecinin başlangıcıydı. atomka oo ah shaygan ugu yar ee noloshu ka samaysan tahay ayaa ku bilaabmay haddaba sidaasi. began to form from that first moment within a specific plan. Her şey en qaab dhismeedka iyo sida uu samaysan yahay atomku waxaa lagu sheegay ama lagu sharaxay buugaag badan oo chemistry iyo weliba physics ah. haddana sidaasoo tahay waxaa jira hal shay oo mar walba laga boodo oo aan la isweydiin: sidee buu ku yimid hanaanka dheeliga tiran isla markaana salka ku haya shaygan aadka u yar? sidee bay protoniska iyo neutronisku iskugu yimaadeen kadib qaraxii Big Bang? elektaroonada laftooduna u wareegaan dusha sare ee atomka. hanaankaasina uga jira dhammaan caalamka iyo atom kasta sababta uu ku yimid kownkan. All the structures known as atoms came into existence. All these questions about the origin of the atom lead us to a single conclusion. dhammaan su'aalahaasi waxay nagu hogaaminayaan hal jawaab, taasi oo noqonaysa inuu Ilaahay ka hore ee ceeb ka nasahnaaye abuuray kownkan dhammaantiis. sidaasina waxay ku caddahay aayadda 117 ee suurat al-Baqara. God creates the entire universe. Scientists refer to this extraordinary creation in the universe as fine-tuning. This, in turn,
reveals the existence of a creator who rules the whole universe. That creator is Almighty God, Lord of the worlds. He is the originator of the heavens and earth. When he decides on something, he just says to it, be, and it is. بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون bal hadda aynu ka hadalno qaab dhismeedka atomka iyo sida uu samaysan yahay ama waxa afka Ingiriisiga loogu yeero the structure of the atom. Atomku waa shay aad iyo aad u yar oo aanay suuragal ahayn inaad ku aragto xataa weynaysooyinka aadka u awoodda badan. Dhaxroorka atomku waa 1 sentimitir oo loo qaybiyay milyan qaybood. Haddaba muxuu ka kooban yahay atomku? bal aynu isla eegno qaab dhismeedkiisa iyo waxa uu ka kooban yahay. And we would need to magnify that key to the size of the earth. Every atom inside the key magnified to that extent would be no larger than a cherry. So what are the contents of such a minute structure as this? Let us investigate the complex and flawless structure known as the atom together. Atom kasta waxa uu leeyahay ama nucleus iyo electrono ku wareega dushiisa sare oo ka fog bu'da. Bu'da waxa ku jira saxaro kale oo loo yaqaano protons iyo neutrons. Ilaa waayo dhaweyd waxa loo haystay in kuwan yihiin waa protonada iyo neutronada waxa ugu yar ee atomku laftiisu ka samaysan yahay. balse cilmi baaritaano dhawaanaha la sameeyay waxa lagu ogaaday inay protonada ku sii jiraan saxaro iyaga ka sii yar oo loo yaqaano quarks. The power is stored in the nucleus ama awoodda ku kaydsan bu'da. The nucleus is located. Bu'du waxay ku taalaa bartanka atomka waxaanay ka kooban tahay tiro go'an oo neutrono iyo protono ah marka loo eego astaamaha atomkaasi leeyahay. On the properties of that atom. The volume of mugga bu'du waxa uu la mid yahay mugga atomka oo loo qaybiyay 10 bilyan oo qaybood ama 10,000 oo milyan oo qaybood. qaybtana waxaan ku soo qaadan doonaa taariikhda waxqabad ee aqoon-yahan Haaruun Yaxya oo inta badan barnaamijyadeena aynu ka soo qaadano. Adnaan Oktar waxa uu ku dhashay magaalada Ankara ee dalka Turkiga sanadii 1956. waxa uu caan ku yahay Haaruun Yaxya waa nin diin u saaxiiba isla markaana noloshiisa inta badan ku qaatay sidii uu bulshooyin badan oo caalamka ka tirsan uga dhaadhicin lahaa jiritaanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo kalinimadiisa iyo siduu u faafin lahaa waxyiga uu Quraanku xabaarsan yahay. isaga oo ka bilaabay sanadihii jaamacadda ku jiray waxa uu noloshiisa qayb walo ka tirsan u hibeeyay arrintaasi aadka u muhiimka ah. Haaruun Yaxya waxa uu qoray boqolaal buug oo aad u qiimo badan gaar ahaan buugtiisa
saynis ahaan uu buriyey aragtida darwinismka waxa ay saameyn weyn ku yeelatay dunida oo dhan. majalada ama magaziinka New Scientist oo caan ku noqday wax ka qoridda ku salaysan abuurta eebe ayaa Haaruun Yaxya ka dhigtay geesi muslim ah oo caalamiya. halganka ideolojiyadeed ee Adnan Oktar ku bixiyay sidii looga hortagi lahaa fikradaha foosha xun sida Darwinism oo salka ku haysa in dadka asalkoodii ka soo jeedaan daanyeer ayaa lagu soo qaatay badi majaladaha wax ka qora fikradda quman ee ku salaysan in Ilaahay wax walba abuuray. shaqooyinka uu qabtay Adnan Oktar ama Haaruun Yaxya waxa loo tarjumay afaf kala duwan oo ay ka mid yihiin Ingiriisi, Faransiis, Jarmal, Spanish, Talyaani, Portugiis, Urdu, Carabi, Albanian, Chinese, Ruush, Serbo-Croat, Malay, Polish, Indonesian, Azerbaijan, Turkish, Bengali, Danish iyo weliba Swedish. howlaha uu qabtay ee kale Haaruun Yaxya waxay kaalin weyn ka qaateen sidii dad badan ay dib ugu soo noqon lahaayeen tubta iimaanka Ilaahayna u garan lahaayeen. taasina waa mid ka mid ah astaamaha muujinaya saameynta ay leedahay shaqada uu hayo Haaruun Yaxya dunida oo dhan. hadda aynu wax ka ogaano howluhu uu qabtay Haaruun Yaxya laga soo bilaabo sanadii 2006. buugaagtiisa oo loo tarjumay 750 luqadood. howlaha kala duwan ee uu qabtay Haaruun Yaxya ayaa loo tarjumay in ka badan 750 luqadood. waxa uu qoray ku dhawaad 250 buug. qoraaga buugaagtiisa waxa iibsaday ku dhawaad 8 milyan oo qof oo ku nool dalka Turkiga. tirainta ku dhowna waxa fursad loo siiyay inay ka akhristaan magaziinada iyo wargeysyada kala duwan ee dalkaasi ka soo baxa. ku dhawaad 190 filim oo dokumentari ah ee laga sameeyay shaqooyinka uu qabtay waxa iyagana loo tarjumay luqado kale. waxaana ilaa hadda si toos looga baahiyaa in ku dhow 100 maxadadaha TV-yada ah oo ku kala yaala 20 dawladood. ilaa hadda 13 milyan dokumentariyo VCD ah ayaa laga iibiyay dunida oo dhan. in ka badan 200 oo website oo ku kala qoran 40 luqadood ayaa bilaash looga akhrisan karaa howlaha Adnan Oktar ama Haaruun Yaxya. website-yadan ama barahan internetka waxa bil walba soo booqda in ku dhow 5 milyan oo qof oo kala jooga 158 dal oo kala duwan. bil walbana ku dhawaad 625,000 oo filmo dokumentari ah, 365,000 oo buug iyo 103 barnaamijyo cod ah ayaa lagala dagaa ama laga download gareeyaa website-yadani. dad gaadhaya 170,000 oo qof ayaa maalin walba awood u leh inay galaan baraha internetka ee Haaruun Yaxya. buugagta kala duwan iyo shaqooyinkiisa waxa kale oo laga heli karaa in ku dhow 40 dal. waqtigan aynu ku jirno sidoo kale in ku dhow 6 milyan oo magaziin ama majalladood oo ay sabab u ahaayeen howlahan Haaruun Yaxya ayaa lagu daabacay dalka Turkiga. in ka badan 5,000 oo maqaal oo uu leeyahay Haaruun Yaxya ayaa lagu daabacay wargeysyada iyo majalladaha dalal badan oo kala duwan sida loogu daabacay website-yadooda. mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee shaqadan u guuleysatay ayaa ah hadafka weyn ee ah sidii shaqada u noqon lahayd mid caalamka oo dhan gaadha si loo faafiyo oo dadka dunida jooga oo dhan loo gaadhsiin lahaa jiritaanka Ilaahay iyo kelinimadiisa.